بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال maanta waxaan joognaa deegaanka Bulobartire ee waqooyiga magaalada Kismaayo halkan maanta waxa aan u soo booqanay oo ka jirta xaalad caafimaad oo aad u adag cudurka shumbiyoodka ayaa deegaankan ka dilaacay kaas oo sababay in 4 qof ay dhintaan oo 3 caruur ay yihiin halka midka afraadna uu yahay qof da'a waxaana markaasi halkan aanu ku olin goobo caafimaad oo dadka halkan lagu dabiibo waxa soo taray qeeldhaanta iyo sidoo kale baaqa ka imaanaya dadka mas'uuliyiinta deegaankan Bulobartire kuwaas oo ugu baaqay wasaaradda caafimaadka ee dawlad goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale hay'adaha samafalka ee deegaankan ka howlgala in ay wax ka qabtaan xaaladaha bini'aadanimo ee deegaankan ka jira waxaana markaasi halkan aynu kula kulnay gudoomiyaha deegaanka Bulobartire Isaaq Cabdulle oo markaasi ka warbixinaya xaaladda deegaankan iyo sidoo kale waxyaabaha ugu muhiimsan ee halkan maanta ka jira dadka halkan cudurka shumbiyoodka uu soo ritay halkee baa la geeyaa waxa uu noo sheegay in deegaankan marnaba aanu ku oolin goob caafimaad ama isbitaal uusan lahayn sidoo kale aysan ku oolin goobo xitaa si gaar ah loogu sii xanaaneeyo dadkaasi cudurka shumbiyoodka uu soo ridanayo iyo cudurrada kaleba waxa sidoo kale aynu la kulnay ururka haweenka ee deegaankan ka howlgala oo iyaguna dhankooda inoogu warbixiyay xaalad deegaanka jirta Raxma Maxamuud oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee deegaankan Bulobartire ayaa nala hadashay waxaana ay faafahinaysaa xaalad deegaanka jirta bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la dhahaa Raxma Maxamuud Bootaan waxaan deganahay deegaanka Luglow degmada Bulobartire meeshan caafimaad daraan ugu haysata ilmihii iyo waayeeladii baa shumbiyood nooga dhacay dhaqtar caafimaad ma haysano ambalaas ma haysano hooyooyinka foosho daryeel ma haystaan wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah inay noola soo gaarto hadda roob baa curtay wacyigelin ma ogiya hadda wax kale oo daawo aan haysano ma leh marka in si degdeg ah loo soo gaaraan rabnaa insha Allah halkan isbitaal ma leedahay isbitaal iyo bareefad midna ma lahan waxa wacyigelin udugu waana la siiyay laakiinse wax hadda dhaqaale ah ima daawo ah ima ambalaas xataa oo Kismaayo noo gaarsiisa xataa ma haysano marka ilaa 4 caruur waa nooga dhimatay dad kalena ilaa 40 ku dhowna hadda wuu yaalaa waa shumaya hadda meel kale oo aan la aadna ma garanayno baabuurta rakaabka inta la sugayaa qofku wuxuu noqonayaa tabcaan buu noqon uu sii dhimana marka insha Allah waxaan rabnaa wasaaradda caafimaadka si degdeg ah inay wax noola halkan ay ku dhalaan haweenka guryahooda ay ku dhalaan wax caafimaad kuwa hadda waxa jira afar bari soo u foolanaya mar baabuur lacag la saaro ilmihii waa dhintay la dhahayo qaar baa dhiig baxaya qaar baa ayagoo awal marka hore nafaqo daraysay haddana foosh ku si dheeraatay dhibaato weyn baa ka jirta meeshaan waxaan ku baaqay markaa codsan waxaan ku baaqayaa hay'adaha caalamka wasaaradda Jubbaland dhamaantood inay soo gaaraan oo soo caawiyaan waayahay gabagabadiina gudoomiyaha deegaanka Bulobartire Isaaq Cabdulle ayaa dhankiisa isagana ka warbixiyay xaaladaha bini'aadanimo ee deegaanka Bulobartire ee ka taagan waxaana uu faahfaahinayaa sida ay wax u jiraan bismillaahir rahmaanir rahiim waa gudoomiyaha Bulobartire Isaaq Cabdulle Hilow oo jooga deegaanka Bulobartire dadka jooga deegaanka Bulobartire waxa galay xanuunka loo yaqaan shumbiyoodka xanuunkaas oo dad badan waxay leeyahay hadda 2 qof dhimashada oo maraysa dad badan oo ilaa 32 qof ilaa xalay ilaa shalay la qaaday dadka wax gargaar caafimaad ay muusa helin dadka tiradiisa ilaa 50 ka gaari haysa ilaa hadda waxaan leenahay waxaan ku qaadnaa ambalaas oo lagu qaado malaha gacmaha iyo garab qabasho iyo xilliga meeshana malaha goob caafimaad malaha deegaanka Bulobartire xataa malaha helta boos malaha farmasho oo local malaha oo iska caadi qof leeyahay malaha wasaaradda caafimaadka dawladda Jubbaland waxaan leenahay halka gargaar degdeg ah la soo gaaro dadkana waxa waaye waa dawladda mas'uulka caafimaadkana waxa mas'uul uga yahay wasaaradda caafimaadka dhowr jeer aan la hadalnay oo cabasho u geysanay cabashadii kama ay soo jawaabeen wasiirka wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsanaynaa inuu gargaar degdeg ah dadka la soo gaaro halkan loo helo daawo dadka xanaano iyo meel ay goob caafimaad helaan Istanbul waxay ku taalaa meel yar oo dadka lagu isku geeyay qaam iyo Istanbul barakacaadi iyo barakacayaashii halkan deganay Bulobartire dadkii deegaanka waxa galay daacuun dadka marka wasiirku waxaan leenahay wasiirow dadkaada mas'uulka dadka soo gaar 100 jeer aan wasaaradda caafimaadka codsi u keensanay xanuuno fara badan oo dadka qabtay waxaa jira gabdho markay fooshaan halkan ku dhibaatooba
problem adag ah dhinaca caafimaadka naga haysta wasaaradda caafimaadka howlaheedii shaqo way ka gaabisay dhinaca Buulo Bartire waxaan ka codsanaynaa wasiirka wasaaradda caafimaadka inuu nala soo gaaro gurmad degdeg iyo dawladaba maxaa dhimasho ah hadda ilaa hadda inta ogtiin dhimashada waxay maraysaa ilaa 4 qof Buulo Bartire Istanbul waxay kala yihiin 3 ciyaal ee qof weyn dadka waxay qadarta rabbi ku dhacda laakiin waxaa dilay shuban biyood dadka markay shubanka hore ka qabtaba hore gadaal noqonaa qofkii haday goob caafimaad nooma dhow anaga ma leeyin dadka marka intii la sii wadada hore gadaal buu sii noqonaa si tiiliga wax lagu qaaday malaha qaar ayagoo la sii wado Istanbul aan la gaarin ay nafta ka baxday ciyaalkana sida badan dadka habeenku ku soo boodaa bahalka marka dadka waxay u dhinteen shuban biyood meeqa hadda jiifta waxaa jiifta ilaa 37 qof iyo 4 dhimasho waa 41 qof oo maraya dad badan oo kale hadda laga soo deyrinayo wax lagu qaadana la leeyahay dhibkaas jir waxaan ku baaqi lahaa wasaaradda caafimaadka dawlad goboleedka Jubbaland wasiirkeeda inuu halkaan si degdeg inoo gurmad dawlad soo gaaro daawo iyo daryeel helno halkan isbitaal malaha xitaa helta boos malaha waa garta marka shaqaalaha wasaaradda halka ma yimaadaan marmar ayagoo si sarfeen iskaga soo imaadaan markaas hadee wax daaweena ma wadaan hadee ilaa ay hadda shuruudku maray 6 maalmood hal qof oo wasaaradda caafimaadka ka socdana nooma imaan marka ugu dambeyntii waxaan ku baaqaa dadka dawladda mas'uulka ah wasaaradda caafimaadkana dawladda wakiil uga ah wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsanaynaa inay daawo iyo daryeel dadka la soo gaarto inta awoodeeda hay'adaha gargaarka waxaan ka codsanaynaa iyagana inay Buulo Bartire si gaar u fiiriyaan waa meel amnigeeda safe yahay oo area laga howlgala meesha ugu amniga badan waay deegaamada kalena way tagtagaan waxaan ka codsanaynaa inay si gaar ah Buulo Bartire u fiiriyaan wasaaradda hay'adaha gargaarka deegaankan waxa uu ka mid yahay deegaanadii tan iyo markii deegaanadan dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo maamulka Jubbaland uu xoreeyay deegaanadii dadku ay ku soo barakaceen isla mar ahaantaana waxa ku badan halkan dadkii ka yimid ama ka soo barakacay abaarihii xoognaa ee dalka ku dhuftay iyo sidoo kale fatahaadihii baahsanaa ee ku dhuftay deegaanadan Jubbaland dadka deegaankan badanaa ma helaan gurmad ama gargaar bini'aadanimo oo dhanka caafimaadka ahi sidoo kale ma helaan adeegyada kale ee asaasiga sida biyaha caafimaadka kaliya waxa halka ku yaala iskuul loogu talagalay in ardayda deegaanadan ay wax ku bartaan waxaana markaasi dadka deegaanadan ay codsadeen in wax laga qabto xaaladda ka jirta deegaanka Buulo Bartire oo maalinta ka dambaysa si adkaanaysa gaar ahaanna adeegyada dhinaca caafimaadka oo ay sheegeen in deegaankan ay ku liitaan waa aadan Kismaayo idin kala soo hadlaya deegaanka Buulo Bartire ee waqooyiga magaalada Kismaayo